فإن كان كما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. السلام عليكم صاحبيال soo dhawaada meel walba dunida caladeeda ka joogtaan halka nagala socotaan waa taariikhi show oo alaaba maalin walba jimcaha hanaga barateen inaynu idin soo gelino qiso taariikhi ah oo cajiib ah hadaba maanta muuqaalkeenu wuxuu ku saabsan yahay maxaa dhaxmaray dhinkii Abu Sufyaan la oranayay hogaaminayay Quraysh iyo boqorkii Yurubiyaanka Hiraqla ahaa hadaba ma maqashay inuu riyooday ninkii boqorkii Yurubiyaanka deedna uu riyadiisa ku arkay in dad gudani ay boqortooyadiisa ay qabsanayaan oo cagta ay marinayaan oo la wareegayaan maxaa dhaxmaray boqorkii Yurubiyaanka iyo Yahuudi ku kadib markii uu ogaaday boqorkii Yurubiyaanku in ummadaha gudan umad kamidii boqortooyadii ay guuleysatay oo laga guuleystay boqortooyadiisii soo dhawaad saaxiibayaal halkan hadii taa markii kugu horeyso aad aragto halkan waa taariikh show alaaba waxaanu soo gudbinaa muuqaalo taariikhda ku saabsan soo dhawaada channelka subscribe saara YouTube-ka waad nagala socon kartaan Facebook-na sidoo kale waad nagala soconaysaan iyo TikTok-ga soo dhawaad saaxiibayaal kadib markii rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu adduunka u diray rusushiisii ama fariin wadayaashiisii kuwaasoo risaalada Ilaahiga gaarsiinayay boqoradii adduunka ka jiray iyo ummadii adduunka ka jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu fariin la diray saxaabiga loo yaqaan Dixyat al-Kalbi waxaana uu diray rasuulku sallallahu alayhi wasallam inuu fariin gaarsiiyo boqorkii Yurubiyaanka kaasoo la oran jiray Hiraqle Yurubiyaanka maanta aad ku arkaysaan dhulka iyo badda inay ka gadaaleen badda loo yaqaan Mediterranean inay ka gadaalayaan halka iyo Ingiriiska iyo Talyaaniga iyo Jarmal oo galbeed baddaas ay galbeedka ka jiraan muslimiintuna aad arkaysaan inay ka soo jiraan dhanka bariga iskama imaan arrinta ayada Yurubiyaanku waagi hore waxay joogeen dhulkan maanta Sham loo yaqaan Baytul Maqdis Suuriya Lubnaan dhulkan dhan carabta arkaysa maanta ay degan yihiin dawladda Carabeed waagi hore waxa ka tarin jiray nimankii Yurubiyaanka ayaa ka tarin jiray muslimiinta ayaa dhigta dhiiga u diray deedna waxa ay gooysiiyeen badda aad arkayso waa kuwii hataa inta badda la dhaafay dhulka Andalus maanta Spain loo yaqaan waa kuwii muslimiintu tagay ee halkaas ka talinayay 800 oo sano iskama imaanay marka in nimanka ayaga badda la gooysiiyo galbeedkii halka meesha maanta degan yihiin la geeyo hadaba daawadayaal nimankani waxay deganayeen dhulka Sham waxay la dagaalameen dawladii Faris ee ayaduna ahayd dawladda labaad ee adduunka ugu weyn marka ayaga laga tago dagaalka asaga waxa lagaga adkaaday oo lagaga awood roonaaday nimankii Yurubiyaanka ahaa ilaa Baytul Maqdis ayaana laga qabsaday saliibkoodina dhulka ayaa la dhigay arinta ayada hatta muslimiintu way ka murugoodeen bilowgii islaamka oo Maka ayaa la joogaa dacwadii sirrigeed ayaa socota deedna waxa dhacday markii dagaalka asaga khabarkiisa uu shaacay oo adduunka idil la isla dhex qaaday in nimanka Yurub la jabiyay oo niman dabcaabudu oo dawladda Faris ay jabisay arinta ayada muslimiintu way dhibtay kufaar Quraysh mushrikiintina waa ay ku farxeen sababta ay ugu farxayaanna waa inay yihiin in ahlu kitaab ay ahaayeen dad kitaab la siiyay oo ahlu kitaab inay ahaayeen ayay oo la jabiyay darteed ayay ugu murugoodeen muslimiintu kufaar Qurayshna waxa ay ugu farxeen in nimankii bila kitaabka ahaayeen Farisiyiinta dabka caabuday ay jabiyeen kuwa kitaabka la siiyay ay Yurubiyaanka ah ama dawladii Byzantiyiinta loo yaqaan arinta ayada Ilaahay quraankiisa kaga sheekay alif lam mim ghulubat ar-rum fi adna al-ard wa kan Ilaahay oranayo Ruumaanki waxa lagaga adkaaday dhulka halkiisa sokayso oo Sham ayaa lagaga adkaaday wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun Ilaahayna wuxuu yiri way adkaan doonaan markii laga adkaaday kadib ayaga ayaa soo rogaal celin doona oo way adkaan doonaan fi bid'i siniin dhowr sano gudaheed lillahi al-amru min qabl wa min ba'd wa yawma idin yafrahu al-mu'minun markaas ayaa muslimiintu ay farxi doonaan hadaba muslimiintu marka hore aad bay uga murugoodeen jabka la jibiyay nimanka Yurubiyaanka maadaama ahlu kitaab ay isla yihiin muslimiinta kitaab loo soo dejiyay Yurubiyaankana kitaab ay haysteen oo Nabiyullah Ciise diintiisa ay haysteen oo nimankan majuusta reer Farisna ay yihiin niman dabka caabudo oo aan waxba haysan sida daraadeed ay muslimiintu uga murugoodeen jabkoodii guushoodin ay ugu farxeen hadaba daawade nimanka Yurubiyaanku way soo rogaal celiyeen ugu dambeyn boqorkii Yurubiyaanka Hiraqlana waa uu ka guuleystay nimankii Kisra iyo ciidankii dawladiisii ee reer Faris way ka guuleysteen dhulkii laga qaato idilna dhammaantiis dhowr sano gudaheed 10 sano wax ka yar way soo ceshteen dhammaanteed boqorkii Yurubiyaanku Ilaahay buu nadar la galay hadii Ilaahay uu ka jibiyo nimanka reer Faris oo dawladda reer Faris hadii Ilaahay u jibiyo inuu meesha leeyahay Ximis ila Baytul Maqdis oo lu ku socon doono asoo Ilaahay u shukrinayo halka Baytul Maqdis ku soo dukan doono ayuu sharad ku galay markii Ilaahay jibiyo dawladda reer Faris ay ka adkaadeen ballantiisi ayuu oofiyay oo wuxuu lu ka bilaabay meesha loo yaqaan Ximis amaanta ku taala Suuriya waxaana uu lu ku tagay Baytul Maqdis Iliya halka loo yaqaan halka ayuu gaaray boqorkii Yurubiyaanka Hiraqle asoo halka joogo oo gutay muxuu ahaay nadarkiisi gutay oo halka joogo ayuu habeenada kamida ninkani Hiraqle maanu haynin caadi ah oo iska mooriyaan ama diktaatooda dawladda haysta muusan ahayn wuxuu ahaa nin garanaya diinta nasaarada oo caalimin culamaahim ay ku tilmaamaan taariikhyaanadii culimadu inay yiraahdaan inuu ahaa nin culimadooda kamida nimankan nasaarada habeenada kamida ayuu xidigaha fiiriyay nin oo faallow ahna wuu ahaa oo waxa weeye dadkan maxaa la yiraahdaa tabgablowga aan u naqaan anagu ama sixirolayaasha oo muxuu ahaa xidigaha iyo waxyaabahaas fiiriyay adigu kaahin buu ahaa ninka asaga ah waxa uu fiiriyay xidigihii deedna waxa uu arkay dadka gudan boqortooyadoodii oo guuleysatay
dhashay ayuu arkay oo soo baxday subaxdii ayuu waabariistay asoo murugaysan oo wejigiisa uu khabiif yahay deedna bataariqadii ama dadkii ku hareereysnaayo ayaa waxay yiraahdeen boqorow saaka waxaan ku aragnaa inaad murugaysan tahay maxaa ka qaldan see wax ka yihiin deedna wuxuu yiri xidigaha ayaa xana fiiriyay waxaana arkay dad gudan oo boqortooyadu ay soo baxday hadaba faman yaqtatinu min hadhihi al-umam ummadahan diriska nala ah waa ay cidda isgudahay ma cid isgudahay ayaa jirta deedna waxay yiraahdeen boqorow yaani wax muruga kugu qabanin waducafahu yahuudu nala joogo ayaa isgudo bani yacquub ilmaha yacquub uu dhalay oo yahuuda oo halkan joogo ayaa isgudo ee waxaad samaynaysaa dhammaan fariin qor oo gobornatooryaasha magaalooyinka haysta dhammaantood waxaad u qortaa fariin inay qaqabtaan kadibna ay laayaan fariin u qor haddaba kuwa aan yihiin waxba aysan murug kugu qabanin waa kuwa ducafaa annagayna waa agnool yihiin sidaa daraaddeed wax ma tarayaane u qor muxuu ahay fariin u qor nimanka yahuudda ah waa la qaqabtay iyadoo yahuuddii xaalku ku xun yahay ayaa waxa yimiday fariin ka timiday nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxayna soo gaartay ninkii Heraqla ahaa fariintii waa uu arkay waa uu akhriyay waxa ku qoran fariintii min maxamedin rasuulillaahi ilaa Heraqla cadiim rum waxa ka socotaa maxamed rasuulka allah waxayna ku socotaa Heraqla oo ahaa ruumaanka ama yurubiyaanka ninkii ugu weynaa salaamun calaa man ittabaca alhuda amma ba'du fa inni ad'uuka bidi'aayati alislam aslim taslam yu'tika allahu ajraka marratayn fa in tawallayta fa alayka ithmu al-arisiyin waxaan kugu yeerayaa islaamnimada ayaan kugu yeerayaa islaam waad nabad galaysaa aslim taslam haddii aad ka jeesatana fa alayka ithmu al-arisiyin beeralayda dambigooda dushaada ayuu yahay falaaxiinta oo beeralayda dhul shaam oo xukumaya ninkan shaamna waa wada beeralay oo yurubiyaanka dadku meesha joogo dhan waa dad inta badan wax beerta waay marka hadaad jeesato fa alayka ithmu al-arisiyin beeralayda dambigoodu adiga ayuu dushaada saaran yahay hawo ninkan yurubiyaanka haystee qaysar loo yaqaan ma ahay nin caamiya seen hore u soo sheegnay waa nin garanaya diinta nasaaradana nabiyullaahi ciise waxa uu ku bishaaray nabiyullaahi maxamed inuu iman doono calaamadiis ayaa ku yaala wax walba ay haystaan oo waxba kama maqno way garanayaan wuuna sugayay ninka la yiraahdo Heraqla inuu soo baxayo xilligiisii in la joogana waa uu ogaa hadaba daawadayaal halka markay marayso ninkii risaalada waday ayaa la fiiriyay wuxuu yiri ninkani ma gudan yahay ii fiiriyo xamaan daba socday deedna waa la fiirshay ninkani waa gudan yahay kadibna wuxuu yiri sheekadu ma ahan weeriyay yahuuda meelahan fadhisa iska daayay yahuuda masaakiinta inta markay marayso asoo xaaladu halka ay ku sugan tahay ayaa waxa uu yiri waxaad ii soo raadisaan ninka nabinimada sheeganaya wax tolkiisa oo meelahan ay jooga soo raadiin marka ayada awaaskii Quraysh oo Abu Sufyaan ahaa ayaa waxa u ganacsi tagay magaalada Gaza la yiraahdo ee Baytul Maqdis halkaas ayuu aaday hadaba daawada waxaad la socotaa xilliga ayada Nabi sallallahu iyo Quraysh waxa dhex yaala heshiiskii sulhul Hudaybiyah oo xabad joojin iyo nabadgelyo waatii la qaatay 10 sano marka ayada Abu Sufyaan waa u baxay waxaana uu ganacsi u aaday halka iyo Shaam Baytul Maqdis ayuu aaday halkaas Abu Sufyaan ayaa ka sheekeeyay wuxuu yiri anigoo iska jooga suuqa oo wax gadanaya ayaa waxa ay yimiday ninkii booliska u qaabilsanay Qaysar magaalada aan ku ganacsanayn deedna waxa uu yiri soo raac waan soo raacay xageedii wadaba su'aalaha weydiinay yiri soo raac waan raacay kadibna waxa uu geeyay ninkii Heraqla ahaa oo yurubiyaanka oo dhan boqorka u ahaa xukumay deedna wuxuu yiri waa ayo qofka ninkan nabinimada sheeganayo ugu dhow nasab ahaan dadkiina meesha taagan ninka ay isxigaan waa ayo Abu Sufyaan waxaan iri aniga ayaa isxignaa maxay isu tihiin buu yiri ilmaadeer ayaan nahay oo marka ayaga waxa weeye reer Abdi Manaaf ay isku yihiin nabiga sallallahu alayhi wasallam dadkan la socdana ma jiro qof Abu Sufyaan kaga dhow nabiga hadaba Heraqla waxa uu yiri soo dhawow dadkii kale ayuu ka soo hormariyay waa isu soo dhaweeyay kuwii la socdana waxa uu yiri gadaashiisa istaaga deedna wuxuu ku yiri anigu ninkan ayaan su'aalo weydiinaya Abu Sufyaan su'aal baan weydiinaya hadii been ii sheego beeniye ayuu ku yiri nimankii gadaashiisa taagna ayuu wuxuu ku yiri haduu been ii sheego adinku beeniyo been buu ku sheegay dhaha Abu Sufyaan waxa uu yiri waan ogaay buu saaxiibaday in hadii Nabi Maxamed aan been ka sheego inaanay beeninaynin sababtoo ah cadaawadiis waan ka wada simanahay laakiin wuxuu yiri xishood aan ka xishoonayo in been laga soo gooriyo maadaama aan sayid iyo aan ahay wes waan ka xishooday buu in been laga soo gooriyo si darteed ayaa runta aan abaaray runta aan u sheegay ninkii Heraqla ahaa hadaba daawada waxa uu yiri kayfa nasabuhu fiikum dhowr iyo 10 su'aalood ayaa uu weydiiyay Heraqla ninkii Abu Sufyaan ahaa taasoo ku xaqiiqsanayo bal ninkan soo baxay inuu nabigii uu sugayay uu yahay iyo in kale deedna waxa uu weydiiyay Abu Sufyaan wuxuu yiri kayfa nasabuhu fiikum ninka nasabkiisu waa sidee nin landheera miya oo agtiina landheera ka ah mise waa nin oo langaaba ninka bal nasabkiisa iga waran Abu Sufyaan waxa uu ku jawaabay ninkani innahu fiina duu nasab ninkani waa landheere ma aha nin langaaba ma aha oo nasabkiisu annaga agtayada waa nasabkiisu waa u sareeya Heraqla waxa uu yiri fa hal qaala hada alqawl ahad qablahu warka ninkani uu la yimid cid adinkeeda kamid oo hore ula timid miya jirta Abu Sufyaan wuxuu ku jawaabay maya waa asaga ugu horeey wax annaga naga mid oo hadalka asaga yiraahdo Heraqla waxa uu yiri fa hal kana min aabaa'ihi malik abiyaashis qof boqor hamiya ku jira Abu Sufyaan waxa yiri maya boqor abiyaashis boqor boqor kuma jirin ninkii Heraqla waxa uu yiri hadana dadka raacayo ma ducafada raacaysa ma dadka waaweyn ugaasida ayaa raacay Abu Sufyaan waxaan ku jawaabay uu yiri ducafada ayaa raacay waxaan weydiiyay yiri miyay kordhayaan ay yaziiduna am yanqusun miyay badanayaan mise waa ay yaraanayaan deedna waxaan yiri bal yaziidun way badanayaan dadka raacaya maalinta ka dambaysa dad baas raacayo way badanayaan ninkii Heraqla waxa uu yiri fa hal yartaddu ahadun minhum sakhdatan lidinihi dadka asaga raacay qof kamid ah diintiisa asoo nacay ma ka ridoobaha ma ka laabta diintiisa bacdaan dakhala fi markuu galay kadib ma ka soo laabta waxaan ku jawaabay buu yiri maya qofkii galaaba kama soo laabanayo waxa uu yiri Heraqla fa hal kuntum tattahimunahu
بالكذب قبل أن يقول ما قال هذا كان أنتم صدقين كار وح بين ما يكتهم جرتين ما بين على وقت نكاح مسقف كلا أيوها أبو سفيان وحنا يقول بينكم أنا نقرنين لينك هرقلا وحويري فهل يغدر بل أنت ما كبحها أبو سفيان وحنا يقول مية بل أنت كما بحو أنا أقول هدا هشيس بين كل جرنا ما نقرنين وحو هشيس كأسجع كوسمين دونه وحاويري هرقلا فهل قاتلتموه ما لا دجالنتين أبو سفيان وحو كتشوا بها ولا دجالني أو مال بدن أيان سكوارجن هرقلا وحاويري كيف كان قتاله فيكم دجالك دجالنتين سيدبوا أها أبو سفيان وحو كتشوا بي سجال بوها وذا ميسي أما كلتن مرنا أنا قولي سنيني مرنا أسجع يقولي سني وحاويري إنك هرقلا هاي محويد أمريا أبو سفيان وحون أمريا إن الإله كلينا عابدنا إن الأصنام تكتجنا وحون أمريا رمتا وحون أمريا إن دور سرانو وحون أمريا صلة الأرحام إن قرابة حريرنا حيباس أيون أمريا وحلوحي أبياش عابدين ودحانتي سنمانتي نكتجا أيون داهية وحاويري أبو سفيان سؤالها أسجع مركو ويدين إنك هرقلاها أيو صاب الله وترجمان كيسو وحكويري وحد كنت هذا وحنك ويديي نسب كيسو واسد الحدين وحنا إيش يكتين ونكال إن الله نهرق وياه وأنا سيداس رسوشو أو حلقة صباحية تبعثوا في نسب قومها نبي ومد لقى صار يحدود وإنه يهكوا أولا نرسن لقى ما صاروا ذاك هوسيل لنقابياشا وحن كلو ويدي هذا كان ويري أفكه الري ويري ميوترا هدي الليلة ها وحن أوران لهيني وانين كان هذا الهرل ويري وكلو أصنع لها يا معنى قوني ما سمينيس سيدو كلو حنك ويدي أبياش سقف بقرة مية كتيري حنا تري ما هذا أوران له ها وحن ليه لهينين كان بقرتويدي أبياشي أيا لقى عيو تاس أو دبتشوا ورادنية وحن كلو ويدي ما ضعفنا الراعي صوت مسدد كواوين مدحوين تا وحنا إيش شكت إن ضعفنا الراعي المساكين تي أغانتي عرور وهم أتباع الرسل رسولنا أيا الراعو وحن كلو ويدي ما قف بكر ردوبيو مركب دين تقال كدب وحنا يقول ترمية وكذلك الإيمان حتى يتم إيمانكم واسداس إلى ما يسترمون وحن كلو ويدي فهل كنتم تتهمونه بالكذب نين كان بين 100 كتب مجرتين قبل أن يقول ما قال أنتم صنهن وحد ويري ونبي المدعى وحنا ترمية كدونه وحن أجادي يعني ذاتك بعدو بين وشيء وهي ما هن مد الله نكون بين أبورانيه وحن كلو ويدي فهل يقدر بلام يكبحها وحنا ترمية وكذلك الرسل لا تقدر رسول واسداس وبلنك كما بحضو وحن كلو ويدي ما لا دجالنتين وحنا تري ها ولا دجالناي وحنا إيش شكت إن دجالك كلتن وياي ومرنا كجوليستان مرنا وحوي وإذا كجوليست وأنا سداس رسول والله امتحاما لكن عقبتي عرفت الضب أي أسكال وحن كويدي معود أمر يا وحنا يقول تري وحنا أمر يا صلاة يصدقوا إليه كل جن عبد إلى سحريريو وأنا فرنتي أنبياء أو إلى إلي مادين نك هرقلا هاي مركي وأجادي فرنت أبو سفيان أي أسود وادي دينا نكتيس أي وحكيري فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين هدي وح أديش شيء نبيهن أو يرويهن نك أسجعه وحق بصندونا لوجيه هالك يلان ما أنت أسجع يا قبصندون بيت المقدس يا سوريا إذا يبغرتويد إذا البا أسجع يا قبصندون هدي أترون إيشك وأنا أجا صوب حيو لكن وما ملايين إنه أذنك عرب أذيك صوب حيو وسوق يعني كل هذا قيصر إنه صوب حيو آخر زمان ونبي الله عيسى يكون بشاري ومبشرا بالرسول يأتي من بعد اسمه أحمد أوكي نبي الله عيسى يري وحكى له يري نك هرقلا هدي أن أود إن جار أو أنا أتجو لتجشمت لقاءه كل كيس أيام سكون لها ولا غسلت عن قدمه لغة وأنا رق لها أبو سفيان مدح أيا وينادي ونك كان أبو سفيان نور توصل أي لا دجال يا نبي الله محمد لأنه وحول أنت أمرك ويري لويس أيا نق لها هدان جاريو أود إن أتجو طبعا صوته سوق جار المحيط هاي هرقلا إنه النبي ويماله وبقر نك كان وبقر كان ماله بس كمان هذه كرو دولة دنبا إلى عشان يسوع سيد رادي وأوجي هاي إنه صن هدي وروميو وصن هذه كرين أو الدليل أي أوجي سيد رادي بقول لي هدان أود إن جارو لغة أيا نق لها أو وحول هالكاس أيا نشوق لها هذا بدأ أبو سفيان وحول يدنا وحب الله ودور يعني بوقان نمكي حريري سفريو نصارى علماء هي محو أبوابيدي يعني بوقان أي باللبن بوق أي بطي ديدنا أنا وأنا نصارى برناك أي أنا لجي مركي برناك أنا لجي أنا يا بن بمحن إريبويري لقد أمر ابن أبي كبشة ننكي محمدها والله أرنتي سوا ويناتي فهذا ملك بني الأصفر يخافه وكان بقركي هو بني الأصفر كهاي وكون ويكعب صنيا هالكاس أيو جاري أرنكيس هذا بدأ وده ميو إسلام ننكي قيصرها كدي مركي أوجادي رسولك صلى الله عليه وسلم إنه هي رسولك صحدها وسوقي على مديس وهي كان مركو أوجادي على مده لما لو قرن لها النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صحيح هي وعلى مده كتبت قراء والنبي الله عيسى كذا دار من لما يكون هي النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركو أركي وحول ما كم يسوي لما دولة ديسي وحلا وحي دقاقي ورقها ويسوي علماء دولة النصارى ويسوي سراكيش الدولة ويسوي قف كست رأي كلها دولة داس لما أنتو هل مال أيو سووا كان مدحتوي ديسي أيو سووا كان ديننا وردي وحكوام لما الباب بدأ اللحر كديدنا الباب بدأ يلا سوحري الباب بدأ مركي لسوحري وحكيري ورهان يروبو وحنا إذن هيا طلق نوية وطلق أيان إذن هيا منك أن سويني النبي جها وصباحي وأنا ويمد على مديسنا وتقرن سنة كتبتنا واتن كقرنه حل حب إذن كم أغني هذا بقى سئن هجاجنا الدولة دين
oo aanay u baabi'in oo mulkigeena boqortooyada adduunyadeena aakhiradana masay u hagaagto ka warrama haddii aan ninkaas raacdaan oo aad la baayactantaan oo wada islaamno maxaad ka qabtaan intaa markuu yiri fadhiga ay ka wada carareen sidii wax balaayo loo sheegay oo kale hal mar ayay yaaceen waan ay qayliyeen ayagoo diidan inay islaamaan oo waxay doonayaan saliibkoodii iyo kirishtaankoodii inay sii haystaan oo ay ka sii mid noqdaan ninkii qaysar ahaa markii uu arkay inaanay islaamaynin ayaa kursigiisa ayuu u baqay wuxuu yiri kuwan waa kuwa san u yaacay wallahi haddaad islaamto ayaga hortooda balaayo ka raacayso kursigaaga wad weynaysa deedna marka ay yaaceen awalba albaabkii uu soo xirtay oo madaxtooyada lagama bixi karin oo hore ayuu u soo xirxiray albaabadii waardiyay wuxuu ku yiri soo celiyo nimankan sii yaacay wala soo celiyo markii la soo celiyay waxa ku yiri war waxaan doonayay inaan arko inta diintiina ku dhagantiin inaad diintiina ku dhagantiin iyo inaad wax kasta oo kale aad ka raacaysaan in kale ayaan baroobeynay imtixaan baan idinka qaadayay ma islaamayno maxamedna raacimayna istijiyo deedna markaas ayay qanceen waana ay u sujuudeen sida ayaana ninkii qaysar ahaa ugu bakhaylay kursigiisii oo alla iyo rasuulkiisii wuxuu ka doortay kursigiisii sida ayaana ilaahay ku baabi'iyay boqortooyadiisii nabiguna wuxuu yiri haddii qaysar dhinto falaa qaysar bacdo waa qaysar ka dambayn doonaa ma ay jirto sidaas ayaana ay ku baabi'i doontaa dowladoodii muslimiintiina dowladii sidaas ayay uga takhaluseen oo xilligii Abubakar iyo Umar ayaa laga takhalusay dowladii Yurubiyaanka Bisantiyiinta loo oranay halkaas ayayna ku baabiceen hadaba wadayaal halkaas ayuu ninkii qaysar ahaa ama Hiraqla ahaa ku qaabilay fariintii nabiga sallallahu alayhi wasallam mana uusan rumaynin oo waxa uu ku bakhaylay boqortooyadiisii ayaa uu ku bakhaylay asagoo waliba ogaaday in nabiga sallallahu alayhi wasallam uu xaqan nabi yahay waana bini aadanka iyo boqortooyadu iyo dhibaatadii mulkiga iyo dhibaatada ilada dabada wadayaal halkaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa fariintii ninkii Hiraqla ahaa uga timid nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo radul ficliga qaabkii uu maartay uga jawaabay iyo kulankii dhaxmaray asaga iyo Abu Sufyaan haddii halkan soo gaartay la soco muuqaalka xiga channelka subscribe saar aad baad u mahadsantahay assalamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh